kuu sheego howlgalkaani waa howlgal in muddo la diyaarinayo oo socda oo aan rabno in deegaankan hubiyo ilaa xareer inta u dhaxaysa inaan kaga sifayno haddii ilaahay yiraahdo nimankan khawaarijta ujeedada laga leeyahay waxay tahay guudaan dalka in laga sifeeyo waxaana ay daba socotaa baaqi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mudane xasan sheekh maxamuud uu ku baaqay ama ku dhawaaqay dagaal aan kama dambaysa oo looga sifeynayo dalka guudaan qayb ka mid ah annaga galmudug ahaan ama hubyo ahaanna xilligii hawsha la soo gaartay waxay ahayd xilli hore diyaar garow ciidamadu waa dhan yihiin insha allah waxaan rajaynaynaa dhowaan inaan soo afjarno deegaankan dadka ku nool 3 sano ilaa 4 sano ka hor ayay dadka deegaanada hoos yimaada hubyo ay la dagaalameen al-shabaab waxaan xasuustaa ayadoo ay marti noo joogto in deegaanada bilxun gabdhaale iyo haddii ilaahay ku roon yahay ilaa caad dagaal lagula galay nimankan waxaan xasuustaa macaawsleyda oo aan bilaaban deegaanka ugu horreeyey ee laga bilaabo dagaalka inay ahayd waxaan ognahay geesinimadii wasil iyo baxdo meelihii lagu baray dadka in shabaab la iska dhicin karo deegaanada galmudug ay qayb ka tahay si gaar waxaan uga hadlayaa deegaanka hobyo yacni hobyo maanta kow ma aha hawshaas horey u jirtay dadkeeduna waa u diyaarsiiyeen waxayna la sugaayeen xilligan duufaanta ah oo dowladda iyo dadkeedu ay isku kaashadeen in loo dhaqaaqo meesha dhaqaaqina waa u diyaarsanay